إلهنا ما أعجلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك دينتني ودين لغو سدولي waxaa ku soo duulay gaal horu duulaan ugu ah kuwa mujtamacaadka muslimka luqadoodii ku hadlay oo midabkoodii leh oo ka dhashay iyagana oo soo isticmaalay sida muslimiinta dalkoodii iyo khayraadkoodii loo boobayo loo weerarayo loo qabsanayo baa diintoodana waxaa ku socda weerar iyo burburin sidaas daraadeed maadaama diinteenna weerar ku socdo muslimiintii haddaynu nahay difaaca diinteennu waa mas-uuliyad inoo wada taalo ma aha wadaad keliya uma taalo sheekh keliyana uma taalo culimmadu safka horey kaga jiraan ilaalinta iyo difaaca diinta laakiin ruux kastoo muslimay u taallaa musaasma ruux kastoo muslima bay u taallaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah war dadka mu'miniinta ahow hiiliyayaasha alle noqda macnaa waxaa laga wadaa hiiliyayaasha diinta alle noqda hal qabsiga u riibso ereyga la qabsaday muxuu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'min ma tahay warsoo mu'min ma tahay marba haddaad mu'min tahay mas-uuliyadda ku taallaayi waa diinta u hiilinteeda qalinkaaga waa inaad ku difaacdo murtidaada iyo suugaantaada waa inaad ku difaacdo cilmigaaga waa inaad ku difaacdo dhaqaalahaaga waa inaad ku difaacdo awooddaada waa inaad ku difaacdo wax kastoo ilaahay ku siiyey waa inaad diinta u sakhirto diinta iyo ilaalinteedu waa waajib ina saaran afkaaro fara badanna waa ina soo galeen xilkaa iyo mas-uuliyaddaasi kulligu inoo wada yaallaa hooyadu waa inay ka hawlgasho caalimku waa inuu ka hawlgalo suugaanyahanka waa inuu ka hawlgalo gabayaagu waa inuu ka hawlgalo midhaha ninka abuuraa waa inuu abuuro diinta difaaceeda u abuuro waa soo ma jeed nin walba ninka qalinka haya waa inuu ku difaaco sidaas daraaddeed diinta difaaceeda iyo ilaalinteeduna waa mas-uuliyad